Asalaamu calaykum guys, soo dhawaada. Maanta waxaan idin hayaa qaab fudud oo qurux badan oo aad ilkahaada ku caddayn kartid. Aad ugu dhigi kartid ilka qurux badan oo caddaan ah oo dhoola caddaynta ku qurux badan. Adigoo isticmaalaya waxyaabo dabiici ah. Sida waxaad soo qaadanaysaa hal xabo oo yaanyo ah ayaad soo qaadanaysaa. Markaad soo qaadato waxaad kala soo qaadanaysaa midi si aad ugu kala jeexid yaanyadii oo aad laba ugu qaybisid sidaan oo kale. Markaad yaanyada aad laba u kala qaybiso oo aad kala jeexdo waxaad dhiganaysaa dhinac ayaad dhiganaysaa oo sidaan oo kale. Waxaad kala soo qaadanaysaa weel kale ayaad soo qaadanaysaa. Waxaad kala soo qaadanaysaa shabaqa yaanyada lagu gabalgabaleeyo ayaad soo qaadanaysaa. Waayo waxaan u baahannahay yaanyada cadiinteeda ama hilibkeeda ayaan u baahannahay iyo miraheeda. Sidaan oo kale aad samaynaysaa marka yaanyadii meeshii ayaad ku xoqaysaa si cadiinteeda iyo dheecankeeda oo waalka kugu shubmo. Waayo qolofka kore uma baahnin oon iska tuuri doonaa hadduu alleedmo. Markaad sidan samayso oo aad yaanyadii hilibkeedii iyo dheecankeedii waalka kugu shubmo waxaad kala soo qaadanaysaa weel kale ayaad soo qaadanaysaa. Markaad weel kale soo qaadato waxaad kala soo qaadanaysaa shabaq. Kadib shabaqii ayaad ku shubaysaa yaanyadii iyo dheecankeedii. Markaad ku shubto waxaad soo qaadanaysaa oo kale qaando ayaad soo qaadanaysaa sidoo kale. Kadib qaandadii ayaad ku riixaysaa oo saan oo kale ayaad uga cadaadinaysaa si dheecankii yaanyadii weelka uu kugu shubmo. Waayo waxaan u baahannahay dheecankaas ayaan u baahannahay. Markaad sidan samayso oo aad ku cadaadiso oo dheecankeedii weelka aad ku diyaarsato sidaan oo kale waxaad kala soo qaadanaysaa hal qaando oo qaandada kuwa ugu yaryara oo baking soda ah ayaad soo qaadanaysaa ama sodium bicarbonate waad ku shubaysaa. Markaad ku shubto kadib waad isku qasaysaa oo ilaa intay iska dhex galaan ayaad qaandadii ku qasaysaa. Markaad isku qasto oo aad sidaas u diyaarsato waxaad kala soo qaadanaysaa cusbo yar wax yar oo qaandada afkeeda hore aad ku soo qaaday ayaad soo qaadanaysaa. Kadib waad ku daraysaa dheecanka yaanyadii iyo baking soda ayaad ku daraysaa. Kadib waad ku qasaysaa. Markaad isku qasto waxaad kala soo qaadanaysaa Colgate ah oo bamaatada ilkaha lagu cadeeyo ayaad soo qaadanaysaa oo guriga laga heli karo. Markaad soo qaadato kadib wax yar ayaad qaandada ku shubanaysaa oo aad uma buuxinaysid laakiin in yaro xoogaa ku filan ayaad sidaas oo kale ugu shubanaysaa. Kadib waxaad ku daraysaa yaanyadii dheecankeedii cusbadii yareed iyo baking sodadii ayaad Colgate ku daraysaa. Kadib waa isku qasaysaa oo ilaa intay iska dhex galaan ayaad isku qasaysaa oo aad adigoo qaandada isticmaalaya ayaad aad ugu qasaysaa. Waa taqaanaa sida cajiinka loo qaso kale sidaas oo kale ayaad u garaacaysaa oo aad ayaad isugu qasaysaa ilaa inta ay diyaar ka noqdaan oo ay aad iskaga dhex galaan. Markaad xaqiisto inay diyaar ay yihiin kadib ayaad isticmaalaysaa oo aad ilkaha ku cadaynaysaa. Waxaad soo qaadanaysaa oo kale brushka ilkaha lagu cadeeyo ayaad soo qaadanaysaa. Kadib waxaad wixii aad diyaarsatay ayaad ku soo qaadanaysaa. Kadib ilkihii ayaad ku cadaynaysaa oo 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo maalintii hal mar ayaad isticmaalaysaa. Aniga hadda waxaan isticmaalnaa maqaarka oo kale. Markaad brushkas ugu soo qaadato maqaarkaas u marinaysaa. Kadib maqaarka naftirkiisa xitaa wuu isbedelayaa. Waana waxa aan raadinayni oo aan u baahnayn oo ah ilkaheen inaan ka dhigno kuwa caddaan oo qurux badan oo dhoola caddaynta ku qurux badan inaan ka dhigno waxa aan raadinayni. Marka waxaad isticmaalaysaa isbuuci. Aad u mahadsantiin haddaad muuqaalka wax badan ka faa'iiday. Share dheh, la wadaag asxaabtaada. Haddii ay tahay markii kugu horreysay ood soo boqoto YouTube channelkeena subscribe noo saar, la wadaag asxaabtaada.